السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهواء إذا السلامي من وضمن دافع كجوتي وصل على برتي اليوتيوب كا. actually وحنا سؤال إن كجوابه إن confirmation number كإيقونومي تبغى أنا أجيب confirmation number كذا حمامي. actually حلي جدا لما جارن أول إيجانا من السنة هاي إن النتيجة صوب على إنكار. إن فيديو بس هراء وصل لجي يوتيوب channel كيجا وانصادق دونا حاجة description كا إن حاجة سكسب داون دوتين. إن قف كلا جرو سؤال ويدي أو إن haddii aan guulaysto ma haysto shahaado haddaan samaysto ma laga yaabo in su-aal laga weydiiyo waxbarashadayda. of course haa waa laga weydiinayaa. su-aalaha lagu weydiinaya waxaa weli maadada jecleed, maadada ku fiicneed, maadadaas maxaa ku jeclaatay, nooca maadadaas maxay ka hadashaa. qasab su-aalaha dadka la weydiinaya ka mid tahay interviewga. interview horta process dheeraa ka horeeya insha allah biidnillahi karim. process dheerkaas waa inaa horta koodii oo maaragtay marta DS260 maga buuxinaysa su'aalahaas lagu weydiinayo. su'aalahaas dis waxaa lagu weydiinaa interviewna waxaa idin sheegay sida marka hore idin sheegaba qofka maskaxiyan wuxuu roo ku weydiin karaa marmar su'aal kuma weydiin karo marmarna su'aal ku weydiinaya laakiin most dadka waa la weydiiyaa. dadka jaamacadaha dhigtay camal maadada jaamacadda jecleed, maadada ku fiicneed, maadadaas micnaheeda ii sheeg maxay ka hadashaa. qasab su'aalahaas waa su'aalo la isweydiiyo. marka insha Allah billahi karim haddaan noqoto guulaystayaasha oodna haysanin high certificate oo yani iskuul sare aadan dhammaynin oo mid koobiyan samaysana ee ku talagalaysid wallahi horta boqolkiiba 90 waxaan dhihi karaa ma helaysid waayo waa soo lugoynaysaa. ma diidani aniga guulaystid oo baxdin oo meesha tagtid aniga kolley wax iga hor istaaga yani aan kaaga hor istaaga ama ku diidaa meesha ma yaalaan. laakiin su'aalo waa jiraan qasab waa lagu weydiinayaa. interview waxaa loo sameeyey in lagu arko in qofka inuu aad wax barato tahay iyo in aad wax baranin inay ku su'aalaan oo ogaadaan way rabaan. waayo markaad soo abaalgarinayso waa arkay high education level ka waa inuu u hooseeyaa high school diploma inuu ka hooseeyo lama rabo. marka meesha waxa ku jirta sababta loo ogol yahay dadka wax bartay loo kaxeynayo. dadka wax bartay loo kaxeynayo marka maskaxiyan qofka fikiro waxay noqonaysaa in qofka loo kaxeynayo bari ka maalin wadankaas doo taga soo dadka ula qabsado luqadda wadanka hore u barto. maybe English qofka doo markuu high school soo dhameeyo qasab waa uu yaqaan. hadduu wada yaqaanin at least waa fahmaya su'aasha la weydiiyo oo ka jawaabi karaa. maybe inuu hadli waayo, maybe inuu hadli kari waayo oo hadalka toos soo tuuro meediida macquul. laakiin waa yar fahmaya waa yar garanaya. marka saasaa loo doonaya qof literate ah oo wax bartay. illiterate lama rabo, qof jaahil ah oo wax baranin lama rabo. Soomaalida anaga daaqad inaan wax soo galno aad u jecelnahay runta markaan ka hadalno inaan toos wax usoo barano ma jeclin. inaan wax soo barano xoogo wax markaan faahno intaan waayo macsalaam ii sameeyo shahaadaha iskuulka ii sameeyo. marka way jirtaa wadan walbayna ka jirtaa laakiin Soomaalida anaga aad u badannahay waxaana keeni kara dowlad la'aanta noo keeni karto oo noona keentay wadankeeda dowlad ka jira lahayd. أول ولا صح تصدق كل وايد والدنا نوشة كيان قوة سومالية وحي هيدا يعني دولة سومالية وحي هيدا دولة وواحد برشة من الناس إست أفريقيا مكان لقى حالنا هذا نمبر 1 كينيا. لكن أول مرة إهان جرتي سوماليا إهان جرتي مرة واحد يجري أم كسببي نتكاس تاسنا قدمنا خبرنا هذا إهان إن صدا دور شو يمكن مرة رأي نصور لجي أو يعني فيديو كهري وصور لجي صدا ما عرفت استقبال الصورة عايزة مثلا تقول اشتري وقتنا سنة النقطات واحد بوحنا سدي DS260 جاجا افتر DS260 جاجا واحد سدي هان نساء واحد دوكمنت سبوت الدوكمنت اللي هذا سبوت الدوكمنت وحالي ده ورقدها سدا درشدا ان ما اعرف بونس كليرنس فورم كا iyo باسبور كاغا hadii aad guursatay marriage certificate ka kuwaas la yiraahdaa support document waagi hore waa la dirjil support documentiga wixii ka dambeeyay 2022 dadka weynaaska ahaa waa laga joojiyay qaar way dareen qaar kalena maaragtay maysan dirin oo laga joojiyay. hadin 9 December 2021 kii ayaa la joojiyay. marka hadda lama diro laakiin waa ina qaadata supporting documentkaaga aad la tagtaa. dadka 2023 wiinaaska ah oo hadda processkooda u socdo dad qaar tagay waa jiraan, dad qaar oo weli interview maray waa jiraan. waxaa la socon kartiin waxa la yiraahdo visa bulletin. kale qofka hadduu barnaamijku ku jiro oo guuleystay istiibas wala socdaa wax AB la yiraahdo jiro ku wareerana waxa waa administrative process na hore u soo qeexay waa dambi baaris lagu sii sameeyay for further notice ina dambi leedahay inaan lahayn. waa ogahay record ma laha system ma laha Soomaali laakiin badana dadku way ku hayaan oo Soomaali aad bay ugu dhibaan ilaa iyo waxay gaarsiin xataa dadka oo 2022 wiinaska ahaa dhowr qof aan garanayaa jiro oo AB gas lagu dhameeyay oo ilaa hadda bixin yani la dhahay maaragtay
dib u soo codsada sanadkaas soo codsada dhahayn waan garanayaa marka nasiib waa insha Allah billahi karim guul inuu darjeenaya meel uu dunida ka joogtiin guuleysta intaas aan ku joojinaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.